الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في دمو عنا وناسنا وديال إذا لهانت مقصود هذا صومالي تي في مجال بوصاصو وهمين ما أحد تاريخنا له بيجنتا أفرد طبعا كبيش صدحات لابد كل بعتني كودا داود يالو حوار في مدينة حسين دوناني ومحمد عبد العزيز سعيد محمد خان قد بدأتكم على الدونتان وركن في داود يالو حاكم ذا قررك على الشباب وعشان توقف أو جناستو بدن كقفاشي جوال كاسهيران قرح جيستي خسارة سجوجنا لمشي دعوة وكذا عين مقالة اسم مقدشو قدوميها أقل كسرية دولة فدرالك الصومالية والله كل ماي سفيرك عصوبة دالك إنجليز دولة داسي كينيا والسجاب بحد الدعوة دبضة تاسو كمرون صناعين دولة داسي صوماليا مامولكا بايدن وشيغين حرير الله سميان إني واحد بدن سكودين حرير الله سميان كوريا ذوقي بس أيسن وحجواب أيسن كيرين قضب كانوا قدومية وحقوا نقنيا حالدii ugu dambeeyay COVID-19 ee laga diiwaan geliyo dawladdeena Soomaaliya daawada intaas waxaan ogahay qodobadeena fiidnimo haatan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan maamulka gobolkaasi Hiiraan ayaa si adag uga hadlay 15 qof iyo kun neefka lo'da ah oo maalmihii ugu dambeysay ay maleeshiyada ururka al-shabaab ka afduubteen gobolkaasi dadkan oo ganacsato badan ayaa laga doonayaa inay bixiyaan ganax lacageed oo dhan min $100 Mareykanka ah oo lagu amray inay ka bixiyaan neef walba oo ay leeyihiin sababo ku aadan iyagoo loo haystay inay jabiyeen awaamirtoodii ahayd in looda gobolkaasi aanan laga dhoofin karin dekedda Boosaaso iyo Berbera amaba aan la geyn karin deegaamada Puntland iyo Somaliland shabaabka waa awaamirtooda soo rogay dabayaaqadii bishii January ee sanadkan ayaa sheegay in looda gobolkaasi laga dhoofin karo dekedda Muqdisho ama Kismaayo shabaabku waxay xilligan sheegeen in ciddii aan awaamirtooda u hoggaansamin in neef walba oo loo laga shabaabka waa awaamirtan soo saaray dabayaaqadii bishii January ee sanadkan ayaa sheegay in looda gobolkaasi aan laga dhoofin karin shabaabka oo awaamirtan soo saaray shabaabka oo awaamirtooda soo rogay dabayaaqadii bishii January ee sanadkan ayaa sheegay in looda gobolkan aan laga dhoofin karo kaliya dekedaha Muqdisho iyo Kismaayo shabaabku waxay xilligan sheegeen in ciddii aanan awaamirtooda u hoggaansamin in neef walba oo loo lagu ganaaxi doono $100 hal qof ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xalay fiidkii ka dhacay nawaaxiga Afisoone ee Muqdisho sidaasi waxaa Somali TV u sheegay ilo wareed codsaday inaanan magaciisa la sheegin sababo dhinaca ammaanka qarax ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino lagu aasay wadada dhinaceeda oo la beegsaday baabuurka ayaa la sheegay inuu saarnaa sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaan ilaa hadda rasmi ahaan uga hadlin weerarkan waxa uu imaanayaa xilli la qorsheeyay inuu shir uga furmo magaalada Muqdisho maalmaha soo socda madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyay ee xanuunka COVID-19 ee dalka laga diiwaan galiyay 48 saacadood ee ugu dambeysay warbixinta wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in xanuunka laga baaray 1349 qof waxaana laga helay 126 qof oo deegaano kala duwan ku kala sugan 65 kamid ah kiiskan ayaa laga diiwaan galiyay Somaliland 47 kiis ayaa laga diiwaan galiyay gobolka Banaadir 8 kiis waxaa laga diiwaan galiyay Hirshabelle Jubbaland 4 kiis ayaa laga diiwaan gashay halka Galmudugna laga diiwaan gashay 2 kiis 82 kamid ah dadka xanuunka laga helay ayaa waxay yihiin rag iyadoo 44 kalena ay yihiin haweeney waxaana xanuunka ka bogsaday 29 qof sidoo kale dalka ayaa laga diiwaan galiyay 12 xaaladood oo dhimasho ah gobolka Banaadir ayaa 9 xaaladood laga diiwaan galiyay halka min hal qof laga diiwaan gashay Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed tirada guud ahaan ee COVID-19 ee dalka laga diiwaan galiyay ayaa ah 8946 xaaladood iyadoo tirada guud ee bogsatay ay tahay 4108 qof waxaana xanuunka dalkan ugu geeriyooday 349 qof si kastaba ha ahaatee saameynta xanuunsida COVID-19 ee fayraska corona uu keenay ayaa si weyn laba kacleyntiisa looga dareemayaa dalka haatana dalkaasi Kenya iyadoo ay noqonayso talaabo lama filaan ah Kenya waxay ka baxday dacwadda maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ
ka hor dhageysiga loo qorsheeyay inuu bilaabmo Isniinta berri kadib bilooyin dib loo dhigay oo ku yimid codsiga mas'uuliyiinta Nairobi. Sanadkii 2019 kiiska ayaa 2 jeer dib loo dhigay waxayna Nairobi ku guuleysatay inay mar saddexaad dib u dhigto bishii Maarso 2020, laakiin maxkamadda ayaa diiday inay mar afraad dib u dhigto sanadkan iyadoo ku doodeysa inay arrimaha ay Kenya soo gudbisay aysan ahayn kuwo muhiim ah. Wararku waxa ay hadda tilmaamayaan in Nairobi aysan ka qaybgali doonin dood afeedka Isniinta, halkaasoo maxkamaddu ay darafyada siisay fursado siman taas oo u ogolaan lahayd labada dhinacba inay madasha ku soo gudbiyaan caddayn la taaban karo. Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay safiirka Ingiriiska ee dalka Keita Foster. Qoraalka ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha aqalka sare ayaa lagu sheegay in kulanka looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka iyo caqabadaha ku gadaaman. Gudoomiyaha iyo safiirka waxay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalku marayo iyo sidii xal looga gaari lahaa arrimaha ku horgudban doorashooyinka la filayo inay dhawaan ka dhacaan dalka. Keita Foster oo maalintii Arbacada uu waraaqaha aqoonsiga ee safiirnimo ka gudoomay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bilowday dadaallo qayb ka ah sidii looga gudbi lahaa khilaafka hareeyay doorashooyinka dalkuna uu doorasho u aadi lahaa. Daawadayaal, waxaan intaas nooga eeg wararkeena habeenimo ee aad kala socoteen Somali TV. Daawadayaal, waxaan warkeena la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdulcasiis Saciid Maxamed Khan. Intayn warkan war lamid ku kulmi doono sidaas nabadgelyo.